maayirka degmada Burco Ustaad Maxamed Muraad ayaa casuumad saaka ugu sameeyay hotel Nastooxe ee magaalada Burco xubno isugu jira qoraayo iyo hal-abuuro dhalinyaro oo ka kala yimid gobolada Cayn Sool Sanaag Maroodi Jeex oo ka soo qayb galay carwada buugaagta Togdheer oo muddo 3 cisho ka soconayay magaalada Burco casuumadani ayaa waxa ugu horeyntii uga mahadnaqay maayirka degmada Burco xubnihii martida ahaa iyo qaar ka mid ah gudida qabanqaabada carwada bandhiga buugaagta Togdheer waan uga mahad celinaynaa marka waadka maayirka oo runtii ah qof markasta garab taagan oo dhiirigeliya dhalinyarada hawl kasta oo uga baahdaana garanaysa garab taageeda iyo gacan qabashadeeda markasta heegan oo ah runtii waan kaga mahadnaqaynaa abaalkaagana magdi karno hadii aanu nahay dhalinyarada reer Burco kelmadda kale waxaan oranayaa asxaabteedii qiimaha badnayd ee nooga soo safartay gobolada aadka u fogfog ee masaafada aadka u durugsan oo soo socdaalay si ay uga qayb galaan carwada bandhiga buugaagta ee Togdheer runtii iyagana waanu sagootineynaa maanta idin dhamaaday siyaasadda dhinacyadeeda dhaqaale idinka ku fiican idinku dhalinyaro dhulkeena dhaqaajiya hawlihiisa tahriibta ku doofto waxoojiga haysu dhiibi dhulkaaga laga hodmaayo idinku dhalinyaro dhulkeena dhaqaajiya hawlihiisa alxamdulillaah rabbil caalamiin wa bina sa'ana ala umuri dunya wa diin mahad ilaahay markaan ka imaado runtii annaga waxa ugu weyn ee maanta aynu oranayno waa mahadnaq weeyaan aanu mahadnaqayno gobolka Togdheer oo noo kala harin dhammaantii soo dhaweynteedii iyo martisoorteedii runtii waxaan joognay gobolkan Togdheer 3 cisho manaan dareemin in cashi kaliya joognay taasna maantaas waxa iskale gobolka Togdheer oo dhan male Burco oo kaliya Burco anagu kumaan dayacmay runtaan sheegaynaa anaga martida Sanaag war nagu xantaa laakiin Burco martida naga wanaagsan marka hadda la imaado middaana waan u qaraynaa taab waxa si raacda bug feerkii wuxuu yimi maanta Burco taas waxay ka dhigan tahay gobolada bari oo dhan inuu yimi waxaanu arkaynaa dareemaynay siday noo sheegeen cid gacan qabatay oo adiga haynin jir ama beenteeda saaymaada marta waxay ugu dhaheen maayirka ayuun ayaa gacan qabanay ilaahay midana jazaakallahu khayr baan ku leen annaguna waxaan rajaynaynaa maayirada inay sidaa noo gacan qabtaan hadii moole idimo waxaan dhihi karnaa dhalinyarada reer Burco maanta waxay noo noqdeen tusaale inta badan bulshada Soomaalidu waxay tusaale u soo qaataan dadyo kala duwan oo aan Soomaali ahayn balse ilaahay hadduu ilmo kulli shakhsiyan aniga waxa ay yihiin tusaale rajadii iyo hamigii aan kala hadiyeenka inaan wax u qabtana run ahaantii iyaga igu sii dhiirigeliyay oo hami intii ka fara badan iyo rajo intii ka fara badan baan u sii qaadiyeenka inaan wax u qabto waxaan leeyahay dhalinyaro isku duuban wax qabsatay gacmaha is haysta horumar ayaan ku arkay degmada Burco maayirka aad iyo aad u mahadsan tahay oo ku hambalyeynaya aan la kulmo maayir ka soo jeeda gobolada khaasatan gobolka Burco noo dambe bandhigu sii shaqayn doono haddaan nahay gobolada gale ee martida ku ahna bogaadin iyo sharaf aan idin haynay qadarin haddii la yiraahdo markaad noo timaadaan maamuuska aad nasiiseen maamuuska weyn ama u dhigma ayaanu idin siin doonaa oo hambalyeynaa maayirka iyo xildhibaanada dhalinyarada madaxda gobolka iba ilaahay waa hare afka joogtay iyo daad haraaciyay haybadu ilaahay baxshoodana weeyaan hada maanse hadafkii fog baa lagu hagaajay hadba guusha helinkeeda baa lagu habraacay kol haduu qabiil kula galiyo hurinta aafaadka alla ilaahay hanaankiiba iyo taladu ka hoosta waxay soo xasuusiyay inta igu dhiirigeliyay hadee badanka leeyahay suugaanta waxay igu dhiirigeliyay hadee badanka leeyahay inaan ku sii dhex jiro hadee badanka leeyahay suugaanta hadee badanka leeyahay waxa weeye waa maayirka magaalada Burco xaqiiqatan waxaan qirayaa anigoo ila qabaan igala midaysan yihiin walaaladii kale igula martida ah marti kumaan ahayn ila Sacuudiya ama safarada dheer ka soo galay Sanaag Buuhoodle Hargeysa iyo meelaha la midka ilaa Yemen hadee badanka inuu ku dayasho dhab ah uu mudan yahay oo aan dhayeel ahayn oo war saxaafadeed ahayn inuu ku dayasho mudan yahay maayirka Burco ugu dambeyntiina waxaa hadallo dardaaran iyo fariin isugu jira ku saafmeeray casuumadani xildhibaan Axmed Afyare oo ka mid ah golaha deegaanka degmada Burco iyo maayirka degmada Burco Ustaad Maxamed Muraade وانا نجوي دليرة أبور بقى سبعية باليرة قبيلة باليرة هسا باليرة وعي كل فرقون يقول لي بحبوا يصير يا أبو واحد أبور
ninka caynkaasoo kale ah dadka waa maskax badan hadduu wax tiriyo dadka waa maskax badan ay intu haysto waa in aan wada xisamo khadir cabdirasaaq saleebaan khadar hanad bulsha TV magaalada Burco